السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي سود وهذا ملك استوى دنيا كتشوكتان صاحبي الوحن يقدونا عوضة إن دلك وينها روسيا دلك دجال كل شيء دلك يوكرين أيال الغصاري جيب هامبا يورد العيارية اللي وذا كون لواتني أفرقتا وحوين إن بريه الصودا في دلك روسيا الغصاري أو لاكروسي إن كقرب جلان إن قرمضة كقرب جليا واللي كابك كدعدونا دوان dalka qadar marka saaxiibayaal waxaan muraysaa dalkan ku yaala bariga Yurub in uu dareemayo cariiri fara badan maadaama dalkan uu yahay dalalka waaweyn dhammaan adduunka ugu quwada badan reer galbeedka oo isbahaysanaya ayaa waxay ay muqulinayaan dalka Russia needaysi ka soo jeeda ciyaaryahanada ka soo jeeda oo aad iyo aad dhulka la simay maadaama dalkan laga ciribtiray weedkaabka iyo Yurada dalka Germany ka dhacaysa iyo weelkaaba ka dhici doona dalka Qatar saaxiibayaal marka wax muusa dalkan in cunqabatayn lagu hayo xagga dhaqaalaha xagga maalka halka ciyaaraha waxaan la sheegay naadi ka dhisan dalka Russia in isku qayb gali doonin Champions League Euro League iyo UEFA Conference League kaasoo ah macnaha koob waaweyn ee laga ciyaaro dalka iyo qaaradda Yurub oo dhan marka saaxiibayaal dalkan jihad adag ayaa la galay maadaama lagu sameeyay dalkan in cunaqabatayntaas oo dhan loo saarayo ciyaaryahanadiisa naadiyashiisa iyo xulka iyo dhalinyarada u dheesha in waxaas oo dhan lagu caadinayo maadaama aan ogeyn sanadkan dhexdiisa inuu dagaal ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine waxa la yaab ah waxa asaga galay siyaasad iyo ciyaar booni waa la yaabaya marka halkaas waxa ka arkaysa dulmiga iyo dhibaatada ay ku hayso adduunka dhammaan reer galbeedka iyo dadka ka soo jeeda qaaradda Yurub oo dhan iyo reer galbeedka oo dhan waa isbahaysanayaan meel walba dalkan waa laga weerar marka hadeertaan ciyaaryahano badan oo soo kicin dalka Russia ayaa ka bedelinaya qarankan maadaama qarankan oo la saaray cunaqabatayn qarankan uu yahay qaran aad iyo aad u dhib badan laakiin waxa la maleynayaa in dawladda Russia ay ka jaawi doonto waxa ku kaceen UEFA-ga qaaradda Yurub oo dhan marka saaxiibayaal muxuu uga afcalin doonaa madaxweynaha dalka Russia ma laga yaabaa dalka Russia inuu banado Yurada iyo weelkaabka ka dhici doona dalka Qatar dalka Germany 2022 bisha November iyo 2024 Yurada ka dhici doonta dalka Germany ma laga yaabaa inuu korooso dalweynaha Russia oo quwad u leh inuu wax walba ka sameesto hadeer meeshan wadanka xilliga aan joogno wadan walbana wuxuu ku sameyn karaa hadii Ilaahay uu ka celin ama Ilaahay uu sil garab ku siin in iska dhiciyaan waa dalka ugu quwad badan adduunka oo dhan awood iyo muuqo ayuu ku haysaa adduunka dalka dariska la ah ee Ukraine ayuu dhulka la samay saas la arligeed waxa uu soo saaray dalka Russia in laga tirtiro ama laga ciribtiro inuu ka soo qayb galo weelkaabka bilaa hoosada ka dhici doona dalka Qatar iyo Yurada ka dhici doonta dalka Germany marka saaxiibayaal cariiri fara badan ayay UEFA-ga qaaradda Yurub ay saarayaan dalweynaha Russia marka saaxiibayaal wixii warah ee ku soo darsama wararka la xiriira dalka Russia iyo UEFA-ga qaaradda Yurub halkan ayaa kala soo orntaa saaxiib waana ku mahadsantahay saaxiib la jaanqaadkaaga